cusub ee warbaahinta Puntland ee maalmaha baarlamaanka u yaalay maanta la sheegay in baarlamaanku ay ansixiyeen kaasi oo ah mid aan gabi ahaanba noo cuntamay waxaan rabaa inaan halkaan ka cadeeyo xeerka muddo badan inaan dadaal badan ku soo galay dawladda iyo ururada bulshada rayidka iyo warbaahinta iyo hay'adaha caalamiga ee kuwa maxalliga ah inay iska kaashadeen waqti badan baa la soo galiyay khubaro badan baa qortay sida la socotaaneen khubarada ama dadka aqoonta u leh lagu tiriyo inay media aqoon u leeyihiin ama warbaahinta aqoon u leeyihiin ayaa loo dhigay oo loo bandhigay oo qoray oo fikradahooda ku tirsaday waxaan ka xusi karaa Siciid Faarax Yare oo dadka lagu tuusan yahay aqoonta media ama journalistayaasha seniorka inuu ka mid yahay ayaa tala ka dhiibtay qoraalkiisa ayuu ahaa muddo badan ayaa lagu hawlanaa waa la isku raacay xukuumaddii hore ayaa baas garaysay nasiib daro waxa gacmaysay wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba taakiidinayaa aan ku raacsanahay in xeerka maanta la ansixiyay lagu degdegay usan saxaafadda dan u ahayn lana tashan wax badan oo mugdiyana uu ku jiro laga yaabo haddaan laga daba tagin ay dhibaato keeni karto wax dana ugu ma jirto in ay saxaafadda iyo dawladdu muran iyo isqabqabsi oo dhex maro wax badan ayaa dib u dhacaya waxaan codsanayaa marka anigu madaxweynaha Puntland Professor Cabdiweli waxa u dhiman saxiixiisii waana waqtiga uu hirgelayo waxaan aad iyo aad u codsanayaa madaxweyne dhammaan anoo ku hadlaya saxaafadda Puntland in xeerkaasi aadan saxiixin inta aynu khaladka aanu tabanayno iyo waxa ku jira aanu isla eegayno waana ku hanweynahay in codsigaasi uu xagga ka suuroobi doono annaguna diyaar waxaanu u nahay wixii khaldan inaan saxno wada shaqayntana hagaajino aanu isku dayno in aanu noqono saxaafad si toosan iyo si sharciyaba u shaqaysa xeerkan aqoonsiga wasaaradda mar labaad waa khalad wasaaraddu waxay leedahay in ay sida caalamiga markii la sheego waxa ururo ka madax bannaan dawladda ayaa soo sameeya sharciga aqoonsiga saxaafadda kadib wasaaraddu waxay leedahay iyadu saxiix ansixin ah laakiin maaha iyadu inay la timaado oo ay saxiixato maxaa yeelay waa laga xigaa hay'ado badan baan leenahay saxaafadda ah rag badan oo aqoon u lahaa jira sharciyada waanu sameyn karnaa aqoonsiga waa la waxayn karaa waanu isnaqaanaa si wanaagsan baan waxaan uga sameyn karnaa aqoonsi habboon taasina taas ayay lideeda ku tahay waxyaalaha khaldan oo dhan insha Allah waxaan jeclahay in ayna sixi doono ugu dambeyn madaxweynaha waxaan ka codsanayaa saxiixaas in aadan saxiixin oo aanu saxno wixii khaldan wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh meel kastoo ay joogaan gaar ahaan suxufiyiinta Soomaaliyeed runtii dareenka walaalihii ugu horeeyay ee hadlay baan la qabaa waan cambaareynaa xeerka saxaafadda Puntland ee maanta golaha baarlamaanku si aan ka fiirsasho lahayn ay u ansixiyeen loomana baahneen xaqiiqdii baarlamaanku iyagoo la tashaday saxaafadda Puntland oo arkay dareenkooda inuu ka soo horjeedo aysan ku raacsiisaneen xeerkan iska soo gudbisaday wasiirka warfaafintu in la ansixiyo waa ka xunna haddana inay wasiirka u sii raacaan taas micnaheedu waxay noqonaysaa wasiirka iyo baarlamaankuba iyaga qorshahan xeerka in wax laga bedelo islooga awalba markay laakiin waxaase sheegaynaa inaanu ka yeeli doonin wixii sharciyana waa wixii la isku raacsan yahay saasaynu ku socdaa wixii sharciya balse tani waa sharci darro oo mid la isku raacsan yahay ma aha